maradaan malqacadoo la daray lagu mashaysiinin waa taa qaxwaha kii madow loo mashiiqsaday inaan anigu moodnoo la simo hay malaynine muduciyo madaacalay intoo madasha loo yeelo markhaatiga soo kala fureen madaxda joogtaa buul. bismillaahir rahmaanir rahiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. waxaana wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo codkaygu ka soo gaadhayo waxaan ku sugannahay magaalada Hargeysa. halkan waxaa igula sugan Aw Cali Cabdiraxmaan Aw Daahir oo in badan aad barnaamijyadiisa iyo suugaantiisa ha noqoto tu uu tiriyey iyo tu uu ka soo gaadhay odayaasha horeba ee aad ka maqasheen barnaamijka Qalinsoor. mar kale ayaa Aw Cali aan ku kulanay magaalada Hargeysa. ugu horreynna aan ku soo dhaweeyay barnaamijka suugaanta ee Qalinsoor Aw Cali Cabdiraxmaan Aw Daahir. bismillaahir rahmaanir rahiim. mawlid waan dhawahay kolka ugu horeysa adigana waan ku salaamayaa ururka dhammaantii Qalinsoorna waan salaamayaa. waa kaga mahad celinayna runtii waqtigaaga qaaliga ah in Aw Cali u dhowr nin oo suugaantooda halkan hore aan ugu qabanay laakiin aan inta badan maaragtay rekoorka gelin amba aan kaydsamin ayayna maantana insha Allah tacaala bal hadda dib u qaban doonaa. aynu ugu horeysiin ninkii la oran jiray Cabaado Geelle maxaad ka haysaa? bismillaahir rahmaanir rahiim. waa soo wanaagsan mawlid. Cabaado Geelle waxaan ka bilaabaynaa waxa jirtay sidaan odayadii ka soo gaadhay nin la oran jiray Badhatug naanaystiisa ayaa wuxuu ahaa nin meel shaqaale ayuu foormaan ka ahaa sida la ii sheegay. dadkii berigii horena dee markuu shaqo tagay ama askari unbuu qoran jiray ama kooli buu shaqo tagi jiray. markaa nimankaa shaqaalaha ah ee uu foormaanka ka ahaa ninkaa ay laqabkiisa ama naanaystiisa lagu garan ogyahay Badhatug ayaa uu Cabaado Geelle magana u shaqo tagay. dabeedna de kolley way kala lacag badan yihiin oo kooliga lacagtiisu way iska yartay ilaa haddana deeta wastaadka ka yartay. deedna maalmaha ka mid ah saa la ii sheegay nin wastaadaha iyo ninkii foormaanka ahaabaa islaayey. dabeedna Cabaado Geelle la kaftamay oo isagoo le war lacagta isku kiiridaysay kooliga iyaguba waa kanaan cidna la dagaalamaynin ayuu in yar ku tuurayo wuxuu yidhi baa la yidhi kooligan jawaankaniba wuu idinla joogaayo markaa lacagta kala jeexataan ha isla jeedhina una sarbeebaya dee inay labadoodu kala jeexanayaan oo kooliga wax nacfilaba ka siinay. dabeed isaguna kaftankii waa soo celiyey Badhatugo wuxuu yidhi Cabaadow jangeli baad ahayd jirayay xoolaha ee jidibiya hangoolla tahay juuna maad noqonne jiilaalkan u baad timiyey jooji hadalkaaga buul. sida laygu odhanayo anigoo wada helin gabayadooda halkaasuu ka bilaabmayo kaalmada uu yidhi waxaa tahay nin miyi ka yimi oon keen magaalnimada shuqulka lahayn kaftanku halkaasuu ka degi waayo markii dambe ma garanaysaa. dabeedna waxaa laygu yidhi waxaa tiriyey gabay aanan helin ninkii la odhan jiray Badhatug baa tiriyey baa layidhi gabay oo halku dhigiisu ahaa anigoon helin dhammaystirkiisii goortii abaar u dhacan sebenka dheeraada durba noolaha dhimanaya dhaguxu waa duug gabay aan intaa ka maqlay isagoo u hiilinaya magaalada xagga dhismaha iyo daaraha dee duuga ayuu yidhi gabaygaa waa la dooni doonaa laakiin maan helin intaa wax ka badan laakiin ujeedadii baa intaa laga kasaya ama laga fahmaya inay magaalada u hiilinayay miyigana wax abaaru saacadaba la tegayaan uu ka dhigay. Cabaado markaa halkaa isagoo ka jawaabaya ayaa magaaladan Bullaxaar la yiraahdo gobolka wixii markaa magaalooyinku yaalay marka hore u mudakarsanayd wadoonyo ayaa waxaas ku soo xiran jireen waa kii Ilaahay mushkilada ku keenay ee ciidu aastay. deedna Cabaado halkaa isagoo leh magaaladuba dhib ku gaadha marka Ilaahay keeno ayaa wuxuu yidhi Bullaxaar magaalooyinkay magac u roonayday goortii camuud lagu mashquulay mawdna lagu keenay maraakiibtii kuma soo xidhaan kamana muuqdaane maqaan baalidiyo shookibaad meel ka aragtaa waxaa la yidhi shuufkii masaajidka iyo waxa muuqan jiray kii saldhigii bilayska. markaa wuxuu yidhi maqaan baaliday iyo shookibaad meel ka aragtaa maqaadiirta daarahaba waa lagu maroojaayay inkastoo malyoon iyo lag iyo mulug lagu dhiibo masruufka dirta xoolaha meel ka soo gale ama deecad baa ku jira ama subag baa ku jira ama wax noocaas ah ama caana ku jira. maradaan malqacadoo la daray lagu mashaysiinin waa taa qaxwaha kii madow loo mashiiqsaday inaan anigu moodnoo la simo hay malaynine muduciyo madaacalay intoo madasha loo yeelo markhaatiga soo kala fureen madaxda joogtaa buul. intaas ayaa anigu aan ka maqlay inta dhex martay kolley dee labadaan nin. Aw Cali
waxa jirta iyaduna mar sugaan runtii aad u xiiso badan ay dhex mari jirtay isaga iyo ninkii la oran jiray Ugaas Tafe iyaga maxaad ka haysaa Ugaas Tafe iyo isaga waxaan ka hayaa gabay kulay daan sidoo si ahayn oo iska yar burbura wacankaasi waxa la igu yiri niman markaa برجي دهران لودو في شيء لودو في مقنع هي يجيب أحمد أو سعيد تفو أحمد أو سعيد أو تفيو بس بوها مقعدي كلام لكن أحمد أو سعيد بوها فحصل له قرن وقاس تفه كلها هي عبادة جلو والنوجا صور رما ميجي مقالدي هبلي شوقي تدان إلا على صاحل لي والمت كانوا كجوسنو waate on dhaxga qurbaaka soo shaqeysan xaga qurbaaka soo shaqeysan nimankaas dibadii jireen baa leeyahay waate noo soo tala bixiyay noo soo tala bixiyay bay dhahdeen way sida la yiri cabaada ku horeeyayo isagoo dawliga miyiga u hiilin jiray isagoo xidhin riyaalka xoogsaday haduu runiga doonayo hablihii rigtoodii fadhiyay dumarka bariga hore ama magaalooyinka kala ma ilbaxana dawaki ina Cabdi Xaashiyo marka calaacalay laha baa amsari bay noqdeen badi haweenkiyo waxa de warkay nimankii markaa miyiga deganaa inta ku miyiga joogaa ooni iyagu xagga edabta ka talinaya inay saas u fiican tahay marka cabaada waxay yidhi riyaalka xoogsaday hadduu runiga doonaya in hablihii rigtoodii fadhiyay lana rabaynayay raasiyoonigooday shubtaan ramadka caanaaye gaaroodii rays lee cayaar rawda ku hayaan buu yidhi habluuna kama culus soo loodhan jiray baarashuud bay gashan jireen gaaroodii rays lee cayaar rawda ku hayaanee raggana hadalka lama sii guraan lamana raacaan rijaalnimo ninka u guursaday raalli gelinaya rabbayna lehe waa jecel yihiin nimay rafiiqaan sida markaa la igu yidhi waxaa isaguna qaatay Ugaas Tafe marka wuxuu yidhi baa la yidhi isagu markaa xagga magaaladu isagu u hiilinaya hablaha magaaladu u hiilinaya magaalada qonina miyiga iyo habluhu u hiilinaya miyiga jooga nina wuxuu hiilinayaa magaalada iyo hablaha jooga marka xaggii labada nin way kala weynaayeen Ugaas baa yaraa nin waliba xaggii zamankiisu maray marka wuxuu yidhi Ugaas Tafe baabuurkan foodhiba marbu baawar kala hayo osto ka baraameynay bananka jeedayeen boqolka meel wada cunayn tanagad baadrool af dheer markuu soo baxay ayaa la iska baal maray kabihii balaadna habli boqorka jeedayay baftaday xidhnaayeen haddaad beri u soo joogtay wax xaalada laga bixin cid u baahan inay badow yahay dib ha u celin dadka soo baraarugay buu hablahan buu geeyay saacada iyo beelka wada qaatay sida been barigii hore timaa dhexda laga kala jeexi jireen dumarku laakiin waaga dhinac in laga jeexo oo xagga inaga timi Carabaa iyo Hindiga iyo dadkii timaa jilicsanaa ayaa dhinac ka jeexay markaas lagu daydayo cawaandi baa la jeexay baa la oran jiray markaa dabada isagu ay hablahan buu geeyay saacada iyo beelka wada qaatay sida banjaawiga timaha baalka kala jeexay inay diyaarado bartaan lagu bilkeedayo iyo inaan badhoq calaalisa baawar kala roon badow yahuudi ba ha celin dadkaas soo baraarugay buu bariis lagu dalacay kaariga iyo buurka iyo toonta burka lagu quraacday qaxwa heelka laga buuxsho bilcantii taqaanaagahay buunda dheer tahay hadeynani baadiye jirto badow ku weynaato basarkii haween waxa uga dhiman 100 amuurood badow yahuudi ba ha celin dadkaas soo baraarugay buu halkaas soo dhigay tabadeedna waxa qaatay cabaade oo ka daba tagaya ilbaxnimadan iyo meeshan uu ku faanay marka wuxuu yiri mar haday xariirow mariyaha xoorka ka cadayso mar haday xabaalowridii ay xidhato baabliinka ama ay xafiisyada taqaan xaakinada jooga kuma xidida laba qoys intay xoolo bixiyaan ee xub caaradaas ay xidheen mariye qafiifka xaluskii muuqdaaya xabaaldhiga ee waxaan ku nacay xaynka daadsan iyo kuwan xooxda laaca iyo hablaan xulaya liimboyga labadaba xidigaha aqliga lagaga xooraayo buu halka inta ayaan ka xasuustaa waliba waxa jiri jirtay gabayo iga maqan oo cabaada geel la leeyahay oo halkuu isagu ka yidhi badow yahuudi ba ha u celin dadkaas soo baraarugay isaguna wuxuu oran jiray musrif yahow wadada ha u banaan la iska maanacay marka baltixii halkaa ku soo goy jiray dib bay nuur raadinayeen ayo waxaad yar moodaa maanta inaanay maskaxdayda u furfurnay aw caliyow markaynu ka nimaadno Axmed Saciid Ugaas Tafe iyo cabaadagii la magan waxaan isagana soo qaadan doonaa tix u lahaa Allah u naxariistay Maxamed Cabdi Xaash watixdii baalayda ahayd
uu kaga warramayay isaguna dhulka xaalufkiisa iyo degmadii ku soo badatay waqooyiga iyo aad iyo aad uu kaga hadlayay bal hadda tixda ayay ahayd way marka waxa la yidhi dhulkii dawaatii ceelkan dhanaaniya la cabbi jiray ee dhulkan la deganaa ee waqooyigan dee ma garanaysaa markii lagu soo batay ayaa waadkii dhulkii baa xaalufay hawd baa loo sii guuray hawd baa loo sii guuray ceelkii dhanaanaa markii dambe dibad uu fogaaday oo geeli baa soo gaari waayey sida la ii sheegay maxamed oo cabdi isagoo markaa bullaaladani ku qabatay inuu geeli u arooriyo oo meel fogoo meelaha ma garanaysaa sii socda cumuumanka la yidhaahdo ayaa waxaa laygu yidhi gabaygan uu tiriyay isagoo ka calaacalaya inuu ceelkii dhanaanaa iyo waqooyiga xaalufay oo geeli gaari waayey ceelkan dhanaanina ceelasha la siman muhayno xataa bullaalahaasi ma keenayo wuxuu keeni jiray marka halkaasuu maxamed ka bilaabay khayr alhasiye markaa wuxuu yidhi sidayaan boqolle dhiiggii galay waa calaacal gabaygu oo lay bargoynaya barkigaan ku faalloonayaa barkigu wuxuu ahaa bahal raggu qoran jiray oo la barkan jirayoo anigu baa waxaashi dhoobalaan ku garanayaa sidaan boqolle dhiiggii galoo lay bargoynaya barkigaan ku faalloonayaa baaxadda habeenee buuraa raggii ku cadibna yimi bannaankii berrimadu lahaa ciidagale boobto loo noqoye waxa bedel wanaag loo camiray waa badraanime buuri waxaa jirtay meel halkan oo caws weyneyd oo qoqobka la odhan jiro kaxda qoqobbaa dhulka intaan garanaya meelaha u caws badan bay ahayd barwaaqadii kaxeed baywan madow baylaha ku cuntaaye cabdallana banyaro wuxuu ka dhigay oo cabdulla isxaaq bohoradiisii isxaaqu saddex u qaybin oo saddexdii isxaaq cabdallana banyaro wuxuu ka dhigay bohoradiisii wuxuu qaasin uga baaqayaa geedkii baalyare bartii duudka baadkii lafaa barasankii qoolka burfayowka waa geelayagii baadna suura lehee baasaar ammaankii ka madhay buuxay feedhaha ee barbar buu ka maray gaanihii baarqabkii guga bicilkii cadaadan jafiye budulladaan jeexay bulla laba danbaa igu wadee uma boqooleene mar hadday bacood lagu lisiya barasankii weyday gaaroodigii buu calacalaya iyo wixii la mid ahaa bahalkuun ka soo hoy naftaa lagu barbeedaaye buu ku yidhi inankii geela la waday toddobaadkanna intaas ayaan barnaamijka kusoo afmeerayaa waana anigoo mawlid maxamed adawaaya iyo dhammaanba bahweynta qalinsoor oo idinkaga tegaya sidaasiyo nabadgelyo